weligaa ma maqasho dhahda aragti bilaadan indhahaaga ka wacan haddaba si aad u fahanto waan kaa sheekayn doonaa qiso gaaban ee keli waxaan kaa codsanayaa inaad waqtigaaga siiso. waxaa la sheegaa in maalin maalmaha ka mid ah uu nin jeclaaday gabadh isagoona damcay inuu mehersado, laakiin ka hor inta uu arrintaa ku dhaqaaqin dadka ayuu ka waraystay gabadha, iyadoona dadka qaar ku yidhaahdeen way sumcad xun tahay, halka qaarka kalena ay ku yidhaahdeen way xishood yar tahay, halka qaarna ayba ku yidhaahdeen way fool xun tahay, wayna dhaqan xun tahay, iyadoona uu ninkii ka noqday inuu mehersado. haddaba ninkoo gurigiisa u sii socda murugina ka muuqato ayaa uu ka soo arbaxay oday waayeel ahi, iyadoona odaygii ku yidhi inankaygiiyo maxaa kugu dhacay, wejigaaga muruga ayaa ka muuqata iyadoona wiilkii uga sheekeeyey arrinkii. haddaba odayga ayaa ku yidhi ina mari, waxaan ku guurin doonaa gabadh ka mid ah gabdhahayga, laakiin marka koowaad waana dadka ka waraysato sumcaddeeda, iyadoona wiilkii ka oggolaaday dadkiina ka soo waraystay gabdhihiisa, iyadoona ay dadkii ugu jawaabeen gabdhahaasi waa gabdha xun. wiilkii ayaa odaygii ku soo noqday isagoona arrinkii uga warramay. haddaba odayga ayaa ku yidhi ina mari raac gurigayga. markay gurigii gaadheen wiilkii ayaa keliya arkay xaaskii odayga, taasoon wax gabdha ah dhalin. haddaba weligaa go'aamadaada ku qaadan hadallada dadka kale. imse jeer ayaa qof miskiina sumcaddiisa lagu dilay hadalla dad kale yidhaahdeen. waxaan rajaynaya wax ka faa'iideen walaalkiin Sakariin Maxamuud. aad ay mahadsantiin saaxiibayaal.